بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay tahay bishii 8 bishii labaad 2023 waxay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland rabtaa inay warbixin kooban ka siiso shacabka iyo bulshooyintaba war kooban xaaladda magaalada Laascaanood. waxaad ogtihiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka baxay magaalada Laascaanood 5tii bishii koobaad 2023 ولينا ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo dusha uga eegaya. waxaa jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada Laascaanood maalintii ay bisha labaad 6 ahayd sanadkan 2023 waxa uu galay maalintiisii saddexaad. kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku eeka ama joogay agagaarka magaalada Laascaanood. waxaa kaloo aan sheegaynaa in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada kuwaas oo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada Laascaanood. xagga adeegyada bulshada magaalada Laascaanood waxaan sheegaynaa imika iyo mar horeba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dadaaleysay inay mar walba helaan adeegyo aasaasi ah shacabka ku nool magaalada Laascaanood, adeegyada biyaha, leydhka, caafimaadka iyo amniga sida ay u helaanba bulshooyinka kale ku nool magaalooyinka kale. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale cadeynaysaa in aanu jirin adeegyo ay ka goysay magaalada Laascaanood mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranku meelaha dadweynaha sida cusbitaalada iyo masaajidda kuwaas oo qaarkood ay ahaayeenba cusbitaalada iyo biyaha iyo waxa adeegyadaasi kuwa ay qaranku marka horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan. waxa kale oo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeedadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majara habaabin ku sameeyaan xogaha rasmiga ah ee la xidhiidha xaaladda Laascaanood. waxaad ogtihiin sawirrada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah adeegyada aasaasigeenu sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida cusbitaallo masaajido ama meelo kale inay yihiin sawirro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye isla markaana aad aragteen baraha bulshada iyadoo bulshaduba soo bandhigaysa oo aanay ahayn waxa taa wadanka gudihiisa ku yaalaba oo meel kale laga keeno been cad ah. ugu dambeyn xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxa ka go'an in arrinta Laascaanood lagu dhameeyo nabad iyo wada hadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore uga aamiyeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.